Saciid bin Caamir waxa uu ka mid ahaa kumanaan qof oo iskugu soo baxay bannaanka magaalada Maka meel lagu magacaabo Tanciim kulan ay iskugu yimaadeen odayaasha Quraysh si ay uga qayb galaan dilka Khubayb bin Cadiya oo ka mid ahaa saxaabada Nebiga nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee kaasoo ay iskugu yimaadeen odayaasha Quraysh si ay halkaasi ugu dilaan oo ay Quraysh si dhagar ah ku soo qabteen. Saciid xilligaasi waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo ku jira da'da dhalinyaronimada dhalinyaronimadiisana waxa ay awood u siisay inuu dhex galo safafka odayaasha Quraysh sida Abu Sufyaan bin Harbi iyo Safwaan bin Umayyah kuwaas oo hogaaminayay kulanka. Taasina waxay u ogolaatay in uu si toos ah u arko waxa lagu sameynayo ninka ay soo qabteen Quraysh. Caruurta, dumarka iyo dhalinyaradana waxa ay diyaar u ahaayeen inay uga argutaan dadkii looga laayay dagaalkii Badar. Waxaa la keenay ninkii maxbuuska ahaa Saciid bin Caamirna isagana waxa uu taagnaa meel u dhow. Waxa uu maqlay cod hoose oo ka soo baxaya Khubayb kaas oo lahaa iga leexda aan tukada 2 ragco inta aan la idilin. Wayna ka leexdeen oo way u ogolaadeen in uu tukado 2 ragco. Saciidna waxa uu arkay Khubayb oo dhanka Kacbada u jeestay isaga oo tukanaya 2 ragco oo aad u qurxoon oo dhammaystiran. Intaa kadib Khubayb ayaa odayaasha Quraysh ku yiri haddii aydan u malay lahayn in aan salaada u dheereynayo cabsi aan ka cabsanayo geerida salaada ayaan dheereyn lahaa. Saciidna waxa uu indhihiisa ku arkay qoomkiisii oo suurad xumeynaya Khubayb oo marba jirkiisa qayb ka jarjaraya ayaga oo leh ma jeceshahay in uu Maxamed booskaaga joogo adigana aad badbaado. Khubaybna uu leeyahay isaga oo dhiig uu ka socdo wallaahi in aan jeclen aniga oo nabad qaba in aan qoyskayga dhex fadhiyo Maxamedna ay muddo qodax. Intaa kadib Saciid bin Caamir waxa uu arkay Khubayb oo indhihiisa xagga samada u taagay isaga oo habaaraya Quraysh. Ugu dambeyntiina waxa uu qaatay neeftiisii ugu dambeysay oo halkaasi ayay nafta uga baxday. Reer Qurayshna waxay ku laabteen magaalada Maka iyaga oo iska ilaaway arrintii ay ku sameeyeen Khubayb. Laakiin Saciid marnaba ma uusan iloobin wixii lagu sameeyay Khubayb. Markii uu seexdo waa uu ku riyoon jiray haddii uu soo jeedana maskaxdiisa ayaa u sawiri jirtay wax uuna ka cabsan jiray in uu ku dhaco habaarkii Khubayb. Saciid waxa uu Khubayb ka bartay wax uusan horay u aqoonin sidaas ayuuna ku qaatay diinta Islaamka. Qalbigiisana iimaanka ayaa buux dhaafiyay isaga oo u soo hijrooday magaalada Madiina halkaas oo ahayd xarunta ama saldhigga diinta Islaamka. Xilligii Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu oo maamulka Islaamka hayay Saciid waxa uu u tegay Cumar isaga oo waana iyo nasteexo u wada waxa uuna yiri Cumarow waxa aan kugula dardaarmayaa in aad dadka alle oga cabsato oo aadan alle oga cabsan dadka iyo in aysan iskhilaafin hadalkaaga iyo ficilkaaga. Hadal waxa ugu wanaagsan midka uu ficilka rumeeyo. Cumar ayaa maalin waxa uu wacay Saciid waxa uuna ku yiri Saciidow waxa aan mas'uul kaaga dhigay magaalada Ximsa. Saciid ayaa dhahay Cumarow alle ayaan kugu dhaarshay ha fitneen. Cumar ayaa xanaaqay oo yiri arrinkan ayaa dusha ii saarteen waadna iga tegaysaan miyaa wallaahi kaama tagayo ayuu yiri. Sidaas ayuuna Saciid ku noqday maamulka magaalada Ximsa. Waqti yar kadib Cumar ayaa ku yiri reer Ximsa ii soo qora magacyada dadkiina fuqarada ah si aan baahidooda ugu qabanno. Waxaa loo keenay feel uu ku jiro magaca Saciid bin Caamir oo ahaa gudoomiyaha magaalada. Cumar ayaa dhahay waa kuma Saciidkan waxaa lagu yiri waa amiirkeena. Cumar ayaa dhahay oo amiirkiina ma faqiir baa waxaa lagu yiri haa mararka qaar xitaa gurigiisa wax dab ah lagama shido waqti badan. Cumar ayaa iska ooyay ilaa girkiisa ay qoysay ilmada kadibna 1,000 diinaar ayuu u dhiibay isaga oo ku yiri iga gaarsiiya salaan waxa aadna ku dhahdaan amiirul muuminiin ayaa kuu soo dhiibay hantidan si aad danahaaga ugu qabsato. Saciid bin Caamir waxa uu yimid waftigii ka socday amiirul muuminiin Cumar bin Khadaab waxa ayna u keeneen wixii loogu soo dhiibay. Saciid ayaa markiiba fiiriyay waxa uuna arkay hanti waxa uu yiri inna lillaah sida in ay ku soo degtay masiibo. Xaaskiisa ayaa ku tiri maxaa kugu dhacay Saciidow ma amiirul muuminiin ayaa dhintay. Saciid waxa uu yiri maya ee arrintaas mid ka weyn ayaa dhacday. Xaaskiisa ayaa ku tiri oo muslimiinta miyaa dagaal lagu jibiyay waxa uu yiri maya ee arrintaas mid ka weyn ayaa dhacday. Mar kale ayay weydiisay waxay ku tiri oo maxaa ka weyn arrintaasi oo dhacay. Waxa uu yiri adduunyo ayaa ii soo gashay si ay aakhiradeeda iga fasaadiso gurigeygana ay iga burburiso. Xaaskiisa ayaa tiri iyada oo aan ogeyn arrinta hantida iska soo afjarhe. Waxa uu yiri garab ma iga siinaysaa waxa ay tiri haa waa kaa siinhayaa garab.
kadibna lacagtii ayuu qaaday waxa uuna u qeybiyey fuqarada muslimiinta. Maalin kadib Cumar binulkhadaab radiallahu canhu ayaa lugihiisa ku yimid magaalada Ximsa isaga oo raba in uu ogaado xaaladda magaalada. Dadkii ayuu wareystay waxa uuna ku yidhi ka warrama amiirkiina, balse waxa ay ka sheegteen 4 waxyaabood. Cumar ayaa dadkii iyo amiirkoodii isku meel ku kulmiyey isaga oo ku yidhi maxaad ka sheeganaysaan amiirkiina? Waxay dhaheen ma inoo soo baxo ilaa xilliga barqada ma ahe oo waqti kale maba aragnaba xilligaas unbuu soo baxaa. Cumar ayaa Siciid weydiiyey arrintaasi. Siciid ayaa wax yar aamusay waxa uuna yidhi wallaahi arrintaas in aan sheego ma aanan jeclayn, balse haddii ay laga maarmaan tahay waan sheegayaa. Aniga ayaa qoyskayga adeega u ah, subax walbana cajiinka ayaa u qasaa, inta uu ka qamiirayana waan sugaa, kadibna waan u dubaa, markaas ayaana soo weyse qaataa oo dadka u soo baxaa. Cumar ayaa mar kale weydiiyey maxaa kale oo ka sheeganaysaan amiirkiina? Waxa ay dhaheen qofna habeenkii ma qaabilo oo lama kulmo. Cumar ayaa Siciid ku yidhi maxaad ka leedahay arrintaas? Siciid bin Caamir ayaa yidhi wallaahi ma jecleen arrintaas in aan sheego. Waxa uuna yidhi maalintii ayaga ayaa u daayey danahooda in aan u qabto, habeenkiina rabbigay ayaa u daayey. Cumar ayaa dhahay maxaa kale oo ka sheeganaysaan amiirkiina? Waxa ay dhaheen bishii hal mar ma inoo soo baxo. Cumar ayaa Siciid weydiiyey arrintaas. Siciid bin Caamir ayaa dhahay amiirulmu'miniinow ma haysto adeeg, mana haysto dhar aan ahayn kuwa aan wato, bishiina hal mar ayaan dhaqaa, inta yar ee ka qalalahayaana waan sugaa, kadibna ayaa la soo baxaa goor dambe maalintii ah. Cumar ayaa weydiiyey maxaa kale oo aad ka sheeganaysaan amiirkiina? Waxayna dhaheen mararka qaar ayuu miirka ka tagaa oo iska dhacaa. Sidoo kale Cumar ayaa arrintaasi weydiiyey Siciid. Siciid ayaa dhahay waxa aan joogu yidhi meeshii lagu dilay Khubayb bin Cadiy aniga oo gaal ah, waxaan arkay buu yidhi Quraysh oo jarjaraysa jirkiisa iyaga oo dhahaya ma jeceshahay Maxamed inuu booskaaga joogo? Isagana uu leeyahay wallaahi in aan jeclayn aniga oo nabad qaba in aan qoyskayga dhex fadhiyo, Maxamedna ay muddo qodax. Mar walba oo aan maalintaas xasuusto iyo sida garabka u siin waayey Khubayb, waxaan u maleeyaa in uusan alle ii dambi dhaafi doonin. Markaas ayaa miir daboolmaa. Cumar ayaa istaagay oo u mahadceliyey alle, kadibna Siciid ayuu u dhiibay 1,000 diinaar si uu danihiisa ugu qabsado. Siciid xaaskiisa markii ay aragtay lacagta ayay tiri alle ayaa mahad iska leh, lacagtaana wax inoogu soo iibi, adeegna inoogu soo samee. Waxa uu yidhi Siciid arrintaas wax ka wanaagsan ma doonaysaa? Waxa ay tiri maxaa weeye waxa ka wanaagsan? Waxa uu yidhi waxa aan siinaynaa lacagtan qof inoo keenaya marka aan u baahno. Waxa ay tiri oo sidee? Waxa uu yidhi alle ayaan amaahinaynaa. Waxa ay tiri haa waa arrin wanaagsan ee samee. Siciid bin Caamir al-Jumaxi isla fadhigaas ayuu ku qeybiyey lacagtii. Allaha ka raali noqdo isaga iyo xaaskiisa dulqaadka iyo qiimaha badneed. Intaas ayuu ku egyahay muuqaalkana maantay. Aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. Intaa muuqaalkan mid ka xiga aan ku kulmayno waxaan leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.